السلام عليكم. هدي اللابتوب iibsanaysid 2026 muuqaalkan waxa kugu sheegi doonaa laptopka kugu haboon soo kale waxa ka qiimeyn doonaa 5 shay shanta shay marka ka qiimeyno waxaan la wadaagi doonaa 3 shay oo kale ka koowaad oo noqonaya tips and tricks oo ah in waxyaabo ku anfici doona soo kale kalabaad wuxuu noqon doonaa waxyaabo laga baahan yahay inaad ku isticmaasho computerka ama waxyaabo ku caawin doona iyo ugu dambeyntii reviewga ama qiimeynta ka bixin doona computerka muuqaalkan intaan bilaabin waxaan leeyahay koobkiina shaaha ama cabitaankiina soo qaata si aan muuqaalkan u bilowno muuqaalkan ilaa dhamaadka daawada insha Allah waxaan nii sheegi doonaa hal shay ilaa dhamaadka la socotaan soo qaata السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر وجهك نوردين سعيد هلكم waxaan kaga hadlaa technology AI marka hadii tay markii kugu horeysay aniga ilaa nagu soo bitid aad baa u maasad هذا مقالكنا سنوضع بلونا فرت كمبيوتركن كمبيوترك ما تسلو ذيك دونه كمبيوتركن مجلس وحلا HP EliteBook وأنا generation 11 مركا وصفر دونه screen record بنيجي قاعد دونه وحن إيجي دونه هرتك كوباد أو CPU جيسا شوف ما دام مقالك كذا إنه لابتوبكن مقالك ما تروح ناس بوصرة شركة تكنسو وشركة الطلبات كأونلاين كان سو كان واحد كده لبتاع ويب سايت كلا سيدا Amazon.ae Alibaba.com Shein.com AliExpress.com Noon.com iyo website kala badan maadaama muuqaalkan kaga hadalno laptopkan horta linkiisa hoose halka hoose ni soo dhigi doona hadii aad imika argiso kala kiibsanaysid waxaad ku helaysaa hadii 290 ilaa 300 dolar hadii aad website-ka Amazon.ae soo dhex gashid linkiga hoose ni dhigi doona hoosta waxaad ku heli doontaa waxa u dhaxeeya 250 dolar ilaa 260 dolar so halka difference oo kala arki doontaa shirkadda tukaasuna ka caawin doontaa cashuur yarna ku saaraysaa soo kale waxa ku leeyahay ka moogaan كده تكنسو إذا كوسو من دوتا أديك كوفن سو كلنا وأديك الأسبوع اللي نكرو بلنتين وا تكنسو أنا صار نقولنا مقالك مركبات وحسمين دوتا ويندوز إكس بس لا قوات دوتا تينو صفر دوتا كاس وحكو صفر يا تاسك مانجر كا ما الكا سيرتي توحد كو صفر دوتا تاسك مانجر وي وسوي نيسيسن دوتا كبعد مركز سوي نيستيد بعد سو دقيقة دوتا هلكن برفورمانس أي كو قرطي هلكن مركز سو كشيد برتا هلكن آيات كيك دوتا CPU جا marka CPU game ku jira kan waa Core i5 one generation 8 waxaan ku garanayaa inuu generation 8 yahay halkan ayuu wax ku soo dhigay 8 tirada marka ku soo dhigay aad mar walba arkaysaa tirada ugu soo horeysa oo 8 haday noqoto iyo haday 11 ba noqoto gigahertz kiisuna waa 1.60 oo yani gigahertz aad u si fiican ma aha laakiin hadana same time waxyaabo badan bay ku soo kicinayaan way qaybta labaad waxa loo adeegi doonaa RAM-ka hadii aan ka soo galo memory-ga RAM ku jira horta waa 16 GB waana RAM runtii aad iyo aad u fiican programmi adagna ku soo kicin kara marka RAM kiisuna intaas marka simple intaas ku diin doona hadii aslaagno qaybta saddexaad oo ah SD ku jira SD horta waxa ku jira halkan 256 GB marka computer noocyada kala duwan ka ni sheegay wax ku xiran 512 GB marka kan waa maalmo cusub oo soo la soo iibsaday marka waa 256 GB oo kaliya marka kan linkiga maanta ni soo dhigayo wuxuu noqon doonaa 512 GB oo qiimo fiican ku imanaya marka Wi-Fi-ga halkan waxa ku jira graphic card kaasna waa uu yar yahay oo aad ma baana laakiin graphic card ka la soo raacay haddana inta kaga imaado SD-ga imika ay noqoto in muuqaalo ama video editing haday noqoto wad badin doonta SD-ga oo 512 ka dhigi doonta haday noqoto RAM-ka 16 GB bas keediisa balse haduu 16 GB ku kicin waayo waxaad ka dhigan doontaa 20 GB oo 4 GB kala ku soo darsanaysa CPU-ga isaga lama bedeli karo waayo sababta loo bedeli karin waxa weeye computerka uu la soo degay waana hooyadii computerka weyn marka isaga la bedeli karo waxa noqonaysaa in computerka marka soo iibsayso sidoo kale aad halkan eegtid core-ku yahay iyo waxyaabo yahay taasina waa muhiim haddii inta kaga soo gudbo waxa loo adeegi doonaa qaybta saddexaad oo qaybta afraad oo ah battery-giisa horta battery-giisu aad buu fiican yahay charger-kiisana halkan hadii aan ku soo dhaweyno charger-kiisa waxa gala type C marka waan ni soo dhaweyn doonaa type C ga gala marka laba god buu leeyahay godka type C ga waa ka dhinacan FT-ka ka soo baxaya type C ga yar baa galaya aan godadkana hadii asla eegno HDMI baa ku jira soo kale waxa ku jira god kale type C ah iyo labada button midna codka laga dalacayo midna codka laga naaqusinayo
way dhinaca kalena hadda isla eegno wuxuu leeyahay hal USB kaliya marka waa godka ku xun yahay waa USB ga kaimaka mouse ku isticmaalay kaliya ku jira iyo button laga shidayay iyo meeshii microphone kale gelinayay intaas kaliya ayuu leeyahay marka inta kaga yimaado waxa isla wadaagi doona qaybta shanaad oo style-kiisa ah wata computer-kan haddii aad xarago ahaan ay noqoto computer-kan aad iyo aad baad ugu xarago kartaa way wuxuu leeyahay flexible wax la dhaho sanu iska rogaya haddii sanadu isticmaali kartaa inta sida trade haddana sanadu isticmaali kartaa hadda doonto inta halkaas ka dhigitid ayaad halka sidii TikTok iyo xaskeeda daawo kartaa qaabkaasna u qabsan kartaa waa flexible aad baa ugu qurux badan soo kale waxa weeye waa touch screen gacantaada iskaga wadaysaa marka waxyaabaha ku jecelahay marka computer-kan isticmaalayo waa touch-kiisa iyo qaabka fudud ee miisaankiisa u qaadi karo inta marka qaar hal farbans dhigi karo oo ku qaadi karto way intaas waa style-kiisa marka computer-kan aad buu qurux badan marka laga hadlayo quruxda oo computer qof walba ku xarago karo weeye marka inta kaga soo gudbo waxa isla wadaagi doonaa hadaba saddexdii shay ee gaarka horta kii koowaad ah tips tricks horta marka koowaad tibka ugu horeeya waxa weeye use it with mouse bluetooth waxa la isticmaali doontaa mouse bluetooth waayo marka laptop isticmaalayso horta runtii touchpad-ku waa la isticmaali karaa laakiin haddana saa uma sii fiicna marka imika kale dhisaynaasmiisu ka harcaraya marka badanka mouse waa la isticmaalo mouse-na haddii ay noqoto inaad mouse la isticmaashid waxaa loo isticmaali doontaa mouse-ka bluetooth-ka aan badanka ma isticmaalo maanta ma ku soo qaatee badanka ma isticmaalo touchpad-kaas ka isticmaalaa laakiin haddii aad designer tahay aad fuliyo wax sismeyso kolba meel click ah dhehaysid wad u baahanaysaa waa qasab marka mouse bluetooth aan igula talinayaa kolley haddii wax lagaa siinaya $15 ama $20 ama $10 baa lagaa sii karaa marka waxa ku xidhanta mouse-ka noociya tibka labaad ama talada labaad waxay noqon doontaa inaan la isticmaalin flash badan ama godka USB-ga inaad waxyaabo badan ku isticmaalin for example imika haddii aan maanta kan ka saaro kala soo qaad kana ka saaro godkaas kaliya leeyahay Soomaa godkan waxa gaariya damage wax la dhaho haddii aad u isticmaashid marka anu badanka marka isticmaalay hal ama laba flash ayuun baan almost ku celceliyo labada flash ma la isticmaala laakiin waxaad ka ilaalinaysaa godka inaad waxyaabo kale oo gaar oo aad adag la isticmaashid marka intaas waa intaas tibka saddexaadna wuxuu noqon doonaa inaad qarisid web kamarada horta kamaradan computer walba ama laptop walba la isticmaalo xitaa all-in-one way leeyihiin laptop walba la isticmaalayo waa muhiim horta inaad web kamaradaas iska xidhid waayo maxaad ka ogtahay bal in computer-ka laga daawanayo in kale wax walba dhici kara computer-kan marka mar walba muhiim inaad screen-ka iska xidhid kamarka wuxuu ku fiican yahay haddii isla eegno qaabka yar buu soo xidhmaya saas uu soo xidhmaya button-ka yar kuwa kalena haddii aad rabtid badee xabad bas kaga dhijisan kartaa marka waa muhiim web kamaradaas mar walba waa inaad sidaa kugu xidhnaato waayo wax walbaa dhici kara oo computer-ka laga yaabo in la jabsay ama shirkadii samaysay ay la socoto qaybta labaad waxay noqon doontaa waxyaaba lagaaga baahan inaad computer-ka samaysid markuu ku cusub yahay horta markuu cusub yahay computer-ka mar walba waxa la saaray awood badan waayo imika waxa laga kaaga baahay oo kale imika haddii aad computer-ka soo gadatid waa inaad wax badan ku qabataa haddii noqoto haddii aad IT kala dhigaysa ama computer word-kii kale iska soo kici kartaa waxbaad qorqori kartaa waa muhiim mar walba inaad ku siyaasi shaqaysid si aad computer-ka si full ah aad u tijaabisid oo si full ah kula qabsado talabaadna waxay noqon doontaa inaad check ku samaysid caafimaadkiisa oo update-yada mar walba soo degayo kale aad mar walba raacaysaa waayo muhiim computer-kaagu inuu caafimaad lahaado fayrasyada iyo waxana inaad ka ilaalisay noqonaysaa for example oo kale haddii aad ka yeeshkidino virus ama temp file uu ku jiro kaliya waxaad taabanaysaa Windows CR halkaana waxaad kusoo qoraysaa MRT marka kusoo qortid sana ayaa kusoo bixi doonta marka waxaad samaynaysaa yes baad taaban doontaa yes marka taabatay halkan next baad taaban doontaa halka marka waxaad taaban doontaa full scan wuxuu samayn doonaa scan dhan buu computer-ka marinaya oo muhiim marka full scan inaad mar walba marisid waxaana aan kula talnay inaad marisid labadii week mar ama weekiiba mar waayo computer-kaaga waxaad ka ilaalin doontaa temp fileska ama shortcut fileska oo haddii imka flash oo kale lagaaga tago kale kastacaana wuxuu noqon doonaa inaad computer-ka driver ku soo dejisid for example imika computer-ka marka soo iibsadayso kale horta way ku jiraan laakiin intaanad horta driver soo dejisan waxa ka horeeya inaad computer-ka laftirkiisa iska format gareysid waayo waa muhiim inaad computer-ka format gareysiso laga yaabaa in inta la soo isticmaalay marka computer-ka waa muhiim inaad mar walba format gareysid markuu soo kugu soo dego oo ku shubtid Windows-yada ugu dambeeyay then wax raacin doontaa driver-radii intaasna waa qaybtii labaad oo aan ku eeginay waxyaabo lagaaga baahan inaad computer-ka ku qabatid qaybta ugu dambeysana waxay noqon doontaa my review ama review-gan ka bixinay computer-kan horta computer-kan intii qaybood haddii ay noqoto
CPU ga horta waxaan ka bixinayaa 8.10 baan ka bixin doonaa waayo waxa ka xun halka gigahertz oo kale gigahertz-kiisaan badnayn waayo marka programyo kalena dee aan hal mar soo wada kicino way cuslaanayaan marka gigahertz-ka ayaa mar walba iska jecelina bato ilaa 2.60 kiya TikTok kale kaga soo hadnay qaybta RAM-ka haddii wada eegno waxay noqon doontaa 8 to 10 waayo 16GB aad buu fiican yahay labada 9 to 10 baan siin doonaa waayo waa 16GB oo ku jira marka ninkii computerka la halayo ay qabsan SD-ga 256GB marka aanu video editor-na waan yahay content creator-na waan yahay marka programyo culus baan isticmaalayaa uguma filna 256 kaasoo kale marka adiga imika kala arday tahay oo isticmaalayso software yaryar uu kugu soo baxay laakiin hadda sidoo kale video editor tahay ama graphic designer wayna 512GB ka dhigtay SD-giisa way qaybta afraadna waa battery-giisana aad buu fiican yahay marka waa 100% markuu soo kugu soo degayo type C yarna waa la isticmaalay marka qof oo kale hadii imika laptop kale uu ku dhaho waa inuu dib charger ka wax ku dhaysaa waa type C waa noocii ugu dambeeyay wad ugu faani kartaa xitaa وهي هذا ستايل كان نقطنا ده ستايل كمان يسوى شيء أدب وقرح بدني هاي كمبيوتر كله تركيز مركز قارب أنت ساس كي قاتو ساس كي حرق والله كعنت أنا حتى مركز سوق قادر يكله أسكي قاتو واي وحرق ده حرق ولا ميسترن وي مركز أنت صردن وكود في عيني هاي أنا بقول كيو بقول مركز هذا نقطة بقول كيو بقول كمبيوتر كوا حكوا قيمين ده أنا بقول كيبه ستيل سياشن واي حكمي دي كمبيوتر هذا بدي قد ميسين أدي استعمالي marka computer laptop isku khada laptopka mudadii ugu dambeysay isticmaali weeye badan kan waan isticmaalaa marka haddii noqoto inaan de kula taliyo computerkana kula talinaya marka haddii aad computerkana kala helaysid ama kii aan TikTok kale ku sharxay haddii aad helaysid linkiga hoose ayaan nin dhigi doonaa linkiga haddii aad muuqaalka maantana ka anfacdeen naga ilaahay nagu soo biitaan si aad waxyaabo badan technology uga anfacdaan insha Allah muuqaalo badan oo soo wadnaa oo imika dhankii TikTok ku yar badan oo TikTok أنا ممكن مقالة يرجع كمان سوق النعم من يوتيوب كي سيانا إن شاء الله كمان مشغول دونا واحد لي واحد كم عصتي وقت يجتمع يكون بحين يصير تذلك يو سد إيدي يستي information كي يطلعتي واحد رجينا من مقالة كنا كمان بعدين واحد لي هاي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.